ajandayaashii ugu weynaa ee shirka lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa wasaaradda amniga oo laga dhageystay xaaladda guud ee amniga dalka. waxa ay ka warbixisay guulaha amniga laga gaaray iyo sidoo kaleeto qaababkay ula falgalaan argagixisada ay soo bandhigeen oo guulo waaweyn oo la taaban kara sanadan laga gaaray. sidoo kale wasaaradda warfaafinta ayaa waxay soo bandhigtay siyaasadda dalxiiska oo goluhu cod aqlabiyad leh ku ansixiyay. sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxay soo bandhigtay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya in meel wanaagsan uu marayo. Febraayo go'aanka ugu dambeeya la qaadan doono. rajo aad iyo aad u weyn ay jirto in dalka laga cafiyo guud ahaan deynta. sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxay soo bandhigtay tirakoobkii ay ku hayeen shaqaalaha rayidka oo wajigiisa saddexaad marayo. waxyaabaha guulaha waaweyn ee la taaban karo wasaaradda ay gaadhay waxa ka mid ah in ay sameysay xarun dhexe oo lagala soconayo shaqaalaha rayidka waxqabadkooda iyo howlaha dhammaan ee dawladda. wasaaradda dastuurka arrimaha dastuurka ayaa waxa ay soo bandhigtay geedi socodka dib u eegista dastuurka. waxa ay soo bandhigeen guulaha laga gaaray ilaa iyo hadda wax u qabsoomay, sidoo kale caqabadaha ugu horgudboon. waxayna muujiyeen bilowga sanadka 2020 ee nagu soo fool leh in ay dhammaystiri doonaan dib u eegista dastuurka, ayna soo dhammaystiri doonaan wax walba oo ka dhinna.